هنجمياش ومدة الصومالية طانتي وهرجيسية وعضو دارتي marka ma hadlayo sheego saacad marka waa kasaa aswa ashi markii la soo shaqeeyay waa rag soo halgamay dhaawac baa ku yaalay dhifta gumaystaha xabad baa loo dhacday taariikhdiisa waa raggii midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan la joogo qof soo dhaawacmay waddankeena marka annaga waxaan rabnaa inaan noqono example iyaga ka sii fiican insha Allah ta'ala annaga qalligan baan rabnaa inaan ku shaqeyno waddan bayna waddan محمود عبد النور oo ah wasiirkii hore wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda waxbarashada iyo beeraha wasiirna waa ururada caalamiga ah dawladdii siyaad barre kacaankii Oktoobar madaxda waddanka ilaa iyo maanta maalin walba wuxuu aadaa waddankii wuxuu ku shaqeeyahay horumarinta waddanka beeraha marka waxaan naga cudur daartay waxaan muslimiintay adeero badan oo maaragtay ay qorshayn u yimaadaan marka waa ilaahay mahadiis wali ma gaareen adeerada rekoorkii ay dhigeen annaga ma dhawin xataa jiilkiina cusub ayaa waxaan rabnaa the new generation I hope you guys will take over keep going make the country better and beautiful inshallah waa gabdhihii noo qabanqaabiyey hawshan furqaan runtii gabdhaha shaqo fiican bay hayaan waa naga fiican yihiin waa dadka keliya ee ummadda Soomaaliyeed ay ka dhiman laha maanta dumarka Soomaaliyeed hawsha ay qabtaan caadi maaha xabadahaas dhacaya ayay markay xabada dinto ilmaha u shaqeeyaan iskoolada iyo quraanka meel walba iyagaa wada magaaladan aan joogno dugsi quraan iyo iskuul kasta hooyaa taagan markaa weydiiso ilmihii aabba aawe waxay ku leeyihiin he's serious fadhi mudir ay ku leeyihiin ilmihii hooyooyinkana waa kuwana meel walba iyagaa noo horkacay marka waxaan rajaynaynaa in aan siino creditkooda aan idhaahno waxay qabteen waxaan qaban karna maaha marka we are very proud of that Wilson waxay ka qabatay waddanka waxyaabo badan waa hawshan lafdhabartii hawshan waday iyadii fursad qara Allah siiyo waxay qabatay program la yiraahdo adamiga Soma adamiga iskoolay dhistay ma sha Allah NGO ya badan ay sameysay halkan youth program bay qabatay waxay bartay youth sida shaqo u raadsan lahaayeen waddanka uga faa'iideysan lahaayeen sabtiga soo socdana la sameeynaa sabtiga soo socdana waxaan leenahay Sheekh Ismaaciil xalqada talaadada youth James Lee Center oo leenahay dadka oo dhan u sheega waa youth program iyo waalidiinta labadaba insha Allah ta'ala ana toole ma baf labiyo tobanka ilaa wixii ka sareeya waa James Lee flyers 3:30 to announce garayna hadhow insha Allah waxaan rabnaa ummadaan inay indhaha kala furto hor u socdo insha Allah waddankana ha loo duceeyo waxa ugu muhiimsan waxa waddanka muhiim shan iyo tobankan ciyaalka graduationka NESWA waxay u samaysaa party every year so we have that party marka July party badan aa jira waa caruurta dhalinyarada loogu talagalay labadaba dhalinyarada graduationka certificate u sameynaa we have party for the ciyaalka jaamacadaha high schoolka dadka ka baxay dan ilmo waxaan keenaa oo jaamacadaha ka baxay so they will ask a question how they get the jaamacadaha soo aad lahayn how they get the jobs you know help them out we do that too taas way waxaan rabnaa ogaano waayo qaar badan baa ku geeysan that's what every year I sameynaa July program kan iyo laba kala muhiim ah 3 programs inshallah Fozio soo dhow Fozio waxa ugu wanaagsan oo qabanaysa isbitaal ma sha Allah isbitaal haweenkii markay uurka yeeshaan ku dhali jiray duurka iyo banaanka u raaci jiray markay Soomaaliya tagtay waxay soo aragtay runtii arrin muhiim ah ma sha Allah talaabay ka qaaday